bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaan nagala socotaan waa barta youtube-ka aan ku leenahay eegada channel. daawadayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijka su'aalaha eegada channel isla markaana anagoo dhex qaadi doona bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado. Anaguna weydiin doona su'aalo haddii ay ka jawaabaan su'aal walba ku abaalmarin doona. barnaamijka waxaa taabagelinaya ganacsato kala duwan oo ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee xarunta ganacsiga gobolka Gado. barnaamijka halkan waxaa idinkaga soo tabin doona anigoo ah Cabdikaafi Aadan Maxamed Cabdikaafi Dalmar halka dhanka kaamirada uu yahay Cumar Sheekh Cabdiraxmaan. barnaamijka waxaa idin farsameynaya Cabdiraxmaan Qays. daawadayaal barnaamijkan waxaa taabagelinaya goobaha ganacsiga ee kala ah Bulsho Electronics and Cosmetic Shop oo laga helo qalabka elektrooniga iyo sidoo kale cosmetic iyo shoobinada noocyada ugu dambeeyay isla markaana ku yaala guryaha fahan ee ka soo horjeedka argada degmada Balad Xaawo. sidoo kale barnaamijka waxaa taabagelintiisa ka qayb qaatay dukaanka Bedr Electronics and Cosmetic Shop oo lagu iibiyo qalabka elektrooniga iyo sidoo kale shoobinada noocyadooda kala duwan isla markaana laga helo shoobinadii ugu dambeeyay ee laga isticmaalo guud ahaan dalka Soomaaliya. dukaanku waxa uu ku yaalaa wadada La Mushkil. sidoo kale barnaamijka taabagelintiisa waxaa ka qayb qaatay Qudus Shop oo laga helo cosmetics iyo sidoo kale alaabta noocyadooda kala duwan wuxuuna ku yaalaa wadada aada isbitaalka qaliil ee ka baxda bacadlayaashii hore ee degmada Balad Xaawo. barnaamijka taabagelintiisa sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya Carwo Mansoor oo lagu iibiyo dharka noocyadoodii kala duwan isla markaana iibisa dharkii ugu dambeeyay ee laga keenay dalka Turkiga. carwadu waxa ay ku taalaa ka soo horjeedka isbitaalka weyn ee Nujuum. waxayna barnaamijka taabagelintiisa qayb ka ah Dalsor Electronic and Cosmetic Shop oo lagu iibiyo qalabka elektrooniga noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale cosmetiga. waxa uu ku yaalaa dukaanka afka hore ee wadada La Mushkila. waxa barnaamijka taabagelintiisa yana sidoo kale qayb libaax la ka qaatay Soya Electronic and Cosmetic Shop oo lagu iibiyo qalabka elektrooniga iyo shoobinada noocyadooda kala duwan. Soya Electronic and Cosmetic Shop waxa uu ku yaalaa boostajada Ceelwaaq ee degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado. barnaamijkan sidoo kale waxaa taabageliyay isla markaana ka qayb qaatay taabagelinta barnaamijka Dawa Electronic and Cosmetic Shop oo ah dukaan lagu iibiyo qalabka elektrooniga iyo shoobinada noocyadiisa kala duwan. waxa uu ku yaalaa dukaanka Dawa Electronic and Cosmetic Shop wadada aada boostajada Garbaarey ama suuqa sarifka. marka hore walaal magacaaga adiga ku bilaabay. magacaygu waa Asad Xasan Janna Gale oo loo yaqaan Asad Photographer. waayahay Asad meeshan su'aal baa taalo su'aasha waxay tahay sheeg magaca loo yaqaanay sanadkii uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaato. aniga bas ay soo fiiri magaca loo yaqaanay sanadkii uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaato. sanadkii magaca loo yaqaanay sanadkii uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaato. sallallahu alayhi wasallam waxa loo yaqaan sanadkii magaca waxa loo yaqaan sanadkii uu dhashay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Soomaan waxa loo yaqaanay soo dhawow barnaamijka su'aalaha ee Gada Channel. magacaaga Cabdinaasir ciise waxaan ku weydiinaynaa su'aal haddii aad ka jawaabto waxaan ku siinaynaa jaa'izo. waxaad sheegtaa magaca loo yaqaan sanadkii uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelo. wuxuu dhashay magaca loo yaqaan sanadkaas waa caamul fiil loo yaqaanaa. caamul fiil magacaaga Ciise Cabdinaasir. ciise Cabdinaasir iskuul iyo madraso dhigata Soomaa. waata ciise Cabdinaasir oo ah mid ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada Balad Xaawo. waxaan weydiinay su'aashii ahayd sheeg magaca loo yaqaanay waqtigii uu dhashay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam sanadkaas magaca loo yaqaanay. wuxuu ku jawaabay in loo yaqaanay caamul fiil. iminkana waxaan guddoonsiinaynaa hadiyad aad iyo aad u qaalisan isla markaasna ooga timid Dawa Electronics and Cosmetic Shop. ciise oo ka jawaabay su'aashii ahayd sheeg sanadkii uu dhashay magaca loo yaqaanay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam sanadkii uu dhashay magaca loo yaqaanay wuxuu ku jawaabay sanadkaas inuu ahaa caamul fiil. haddana waxaan guddoonsiinaynaa hadiyad ooga timid Dawa Electronics and Cosmetic Shop oo ah hadiyadaha ugu qaalisan hadiyadaha barnaamijkani. marka ugu dambeyntii sidee weeye dareenkaaga hadda markaad ku guuleysatay jaa'izadan kadib? wallaahi horta su'aasha waa la weydiiyay. su'aasha marka la weydiina waa labo inaad ka jawaabtid iyo inaad ka jawaabayso. waan isku dayay oo ragtinimada soo muujiyay waana ka jawaabay. waxaana dareemayaa farxad maadaama iidna lagu jiro adana farxad kale ay siyaado aan ka maxaa jaa'izo helay. waa sidaas aad baad u mahadsantahay. marka hore magacaaga Shucayb Nuur Ahmed. magacayga Shucayb Nuur Ahmed. Shucayb waxaan ku weydiinayaa su'aashaas haddii aad garato waxaan ku siinaynaa jaa'izo. su'aashaasi waxay tahay waxa aad sheegtaa magaalo madaxda gobolka Awdal ee Soomaaliya. Garbaarey. magacaaga Ismaaciil Cabdixakiin. Ismaaciil waxaan ku weydiinayaa su'aal haddii aad ka jawaabto waxaan ku siinayaa jaa'izo. su'aashan ku weydiinayaa waxay tahay sheeg magaalo madaxda gobolka Awdal. Boorama. ما شاء الله. عبد الفتاح الدكسي ما لقيتها أي سكول؟ دكسي سكول وان نكتاه. أيه.
كلاسكات اسكول كلاس 5 أنا كلاس سكول waa tahay Ismaaciil Cabdixakiin waxaan weydiinay sheeg magaalo madaxda gobolka Awdal waxa uu ku jawaabay Boorama su'aashaasi jawaabteedu waa sax waxaana guddoonsiinaynaa abaalmarin ooga timid Dalsoor Cosmetics and Electronics Shop waxaana iminka guddoonsiinaynaa jaa'isadii ayada ahayd waa tahay sideed ugu faraxsan tahay ama shucuurtaadu waa sidee markii aad ka jawaabto barnaamijkan kadib aad iyo aad ayaan u faraxsan maanta anigu ka jawaabay su'aasha la weydiiyey waa tahay dadweynaha ayaad halkan ka salaami lahayd ugu dambeyn dadweynaha muslimiinta meel walba joogaan waa salaam alaykum ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair meel walba joogtaan damaashaad ku ciidan leh magacaaga Abdullah Jamac Abdullahi su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas haddii aad ka jawaabto waxaan ku siinayaa abaalmarin baan ku siinayaa ka inta gobol oo Soomaaliya uu ka kooban yahay 18 gobol 18 gobol ma sha Allah Abdullahi oo ah wiil yar Abdullahi dugsi ma dhigataa iskuulna kalaaskeeta ila 7 Abdullahi waxaan weydiinay su'aal ah inta gobol uu ka kooban yahay dalka Soomaaliya uu ka jawaabay waxaan siinaynaa Abdullahi jaa'izo ooga timid Badr Electronics bay ooga timid isla markaana waxaan halkan ku guddoonsiinaynaa hadiyadaas Abdullahi oo ka jawaabay su'aashii ahayd sheeg inta gobol uu ka kooban yahay dalka Soomaaliya si sax ah ayuu uga jawaabay su'aashaas jawaabteeduna waxa ahayd wuxuu ka kooban yahay 18 gobol halkan waxaan ku siinaynaa abaalmarin uu guddoonsiinayo Badr Electronics oo ah mid ka mid ah taabagaliyaasha barnaamijka Abdullahi waa mahadsantahay magacaaga Maxamed Caawil Maxamed xaafadda degantiin Xalaley waata Maxamed oo su'aal baan ku weydiinaynaa waxaad sheegtaa ninkii ugu horeeyay ee rumeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay Abubakar Sadiq Abubakar miya ma ogtaa su'aasha inay saastay ha atay dugsi ma dhigtay iskuul ha fasalkee tahay waa tahay magacaaga Maxamed waa Soomaa ha Maxamed oo ah wiil da'yar ku nool xaafadda Xananley degmada Balad Xaawa ayaan waxaan weydiinay su'aal ah sheeg ninkii ugu horeeyay ee rumeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay waxa uu ku jawaabay inuu yahay Abubakar ibn Siddiq iminkana waxaan jawaabtaas oo ah jawaab sax ah iminka waxaan guddoonsiinaynaa hadiyad kaga timid ama jaa'izo kaga timid mid ka mid ah taabagaliyaasha barnaamijka oo ah Qudus Shop waa tahay Maxamed dareenkaaga waa sidee kadib markaad ku guuleysatay hadiyadda aad iyo aad aan u faraxay yaad salaamaysaa muslimiinta dhammaan meel alla keenay joogaan waa tahay aad baad mahadsan waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka su'aalo weydiinta ee Gada YouTube channel iminkana waxaan la joognaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ku nool degmada Balad Xaawa marka hore magacaaga adigoo ku bilaabay iyo xaafadda degan masha Allah magacayga waxa la Axmed Maxamed Cabdi Bukhari ma ka socdaa ku nool degmada Balad Xaawa gaar ahaan xaafadda Qansax Barwaaqo Axmed oo ku nool xaafadda Qansax Barwaaqo Axmed waxaan ku weydiinaynaa su'aashaas haddii aad ka jawaabto waxaan ku guddoonsiinaynaa hadiyad su'aashuna waa mid diini ah diyaar waa u tasamaa waxaad sheegtaa saxaabigii ugu xadiis warinta badnaa xadiisyada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay inta isku day su'aashaasi waxa weeyaan Anas bin Malik radiyallahu Anas bin Malik waa tahay waan ka xunaa maadan haleelin isku day wacan ayaad soo bisay waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijkii su'aalaha ee Gada YouTube channel halkan naga daawanaysaan waa YouTube channelka Gada channel iminka waxaan doonaynaa inaan weydiino shakhsigan su'aal bal marka hore magacaaga iyo xaafadda aad ka deganta Balad Xaawa magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdifataax Abdullaahi Daahir xaafadaydu waa xaafadda Qansax oo mane sida loo yaqaan xaafadaas laakiin gadaal waxa la baxday Qansax Barwaaqo xaafadaas aan degannahay waa tahay Cabdifataax oo degan xaafadda Qansax oo mane ama Qansax Barwaaqo sida aad inta la baxdeen waxaan ku weydiinaynaa su'aashaasi waxa weeye mid diini ah haddii aad ka jawaabto su'aashaasi ayada ah waxaan ku siinaynaa jaa'izo waxaad sheegtaa saxaabigii ugu xadiis warinta badnaa ee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiisii ka soo wariyay saxaabiga ugu xadiis warinta badan xadiisyada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Khalid bin Walid mid ka mid ah tagsiliyaasha magacaaga adiga ku bilaabay magacayga Camba leedahay waa tahay Camba waxaan rabnaa inaan ku weydiino su'aashaasi haddii aad ka jawaabto waxaad hadiyad u yeelanaysaa inaan ku guddoonsiino jaa'izo marka su'aasha diyaar baad u tasamaa waa tahay su'aasha aan ku weydiinayna waxaa tahay waa su'aal diini ah waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg ninkii ku soo duulay Kacbada isla markaana doonayay in uu burburiyo aan mar labaad kugu celiyay su'aasha waa sheeg ninkii ku soo duulay Kacbada isla markaana doonayay in uu burburiyo Abraha magaca ku celi Abraham ما هو بتاعنا جوابت أبراهيم كي أصحاب الفيل كي أصحاب الفيل وقت إذا هداد وحير ناقص شيء أصحاب الفيل كوا سنة كواها نبي سنة كل شيء صلى الله عليه وسلم المقعة هذا أحمد حسن أحمد حسن وكم قاعدين عنبي واتاي هذا أحمد حسن وكم قاعدين عنبي إسلام مركان تكسيلياش دقمة بلد حاو
waxaan weydiinay su'aal ah sheeg ninkii ku soo duulay kacbada isla markaana su'aashu waxay su'aal diini ah wuxuu mutaystay inuu su'aasha si sax ah uga jawaabo isla markaana waxaan iminka guddoonsiin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hadiyadii ama jaayizadii kaga timid mid ka mid ah tabagaliyaasha barnaamijka su'aalaha ee gada YouTube channel waxaana su'aashan jawaabteeda guddoonsiin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo ama bixinayo dukaanka Bulsho Electronics and Cosmetics Shop iminkana waxaan guddoonsiinaynaa jaayizadii cambe jaayizadii uu mutaystay anagoona weydiinay su'aashii ee sheeg ninka ku soo duulay kacbada isla markaana uu ku jawaabay inuu ahaa Abraham isla markaana sanadkaas waa sanadkii loo yaqaanay caamul fiil ama sanadkii maroodiga waxaan ku leenahay hambaliyo waxaad ku guuleysatay abaalmarin inaad heshay isla markaana waxa ku siiyay mid ka mid ah tabagaliyaasha barnaamijka waa Bulsho Electronics and Cosmetics Shop ugu dambeyntii bal shucuurtaadu waa sidee kadib markaad ku guuleysatay jawaabta shucuurtayda aad iyo aad u faraxsanahay waa farxad aan la koobi karin waay marka dadka maxaa ugu baaqaysaa ku daawanahay dadka waxaan ugu baaqayaa iid wanaagsan in maaragtay su'aalaha ay ka jawaabaan si jaa'iso loo siiyo waatay aad baad u mahadsantahay naga guddoon baan ku leenahay ninkan jaajada magacaaga adigoo ku bilaabaya maxamed maxamuud maxamed waxaan ku weydiinaynaa su'aal haddii aad ka jawaabto waxaad leedahay jaa'izo diyaar waa u tusama waxaad sheegtaa saxaabigii ugu xadiis warinta badnaa xadiisyada nabi maxamed laga soo wariyay naxariis iyo galiyo kirkiisa Allah yeelay waxa weeye Abu Hurayra ma hubtaa waatay maxamedow maxaa weeye shaqada aad qabato ama waa nolol maalmeedka waxaad ka soo dhacayso waxa weeye harqaan weeymiya waatay laakiin si ma sha Allah waxaan aragnaa inaad diinta ku fiicanta marka waa madrasa ama iskuul iyo aad soo dhigato in badan waatay maxamed waxaan weydiinay su'aashii ahayd sheeg hadii yaani saxaabigii ugu xadiis warinta badnaa xadiisyada nabi maxamed naxariis iyo galiyo kirkiisa Allah yeelay waxaanu ku jawaabay inuu yahay Abu Hurayra su'aashaasi jawaabteeduna waa mid sax ah iminkana waxaanu guddoonsiin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hadiyadii nalagu soo dhiibay isla markaana uu ugu talagalay mid ka mid ah carwooyinka degmada balad xawo waa carwada Mansoor oo ah tabagaliyaasha barnaamijka Gada Channel maxamed oo weydiinay su'aashii ahayd sheeg saxaabigii ugu xadiis warinta badnaa axaadiista nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay oo ku jawaabay inuu yahay saxaabiga lagu magacaabo Abu Hurayra ama Cabdiraxmaan bin Sakhar ayaan maanta waxaan halkan ku guddoonsiinaynaa galabta hadiyad oo mutaystay isla markaasna ay siisay mid ka mid ah tabagaliyaasha barnaamijka su'aalaha ee Gada YouTube channel oo ah carwada Mansoor hambaliyayna ku leenahay ugu dambeyntii adigoo ka faa'iideysanaya fursadan bal dareenkaaga ka waran kadib markaad ku guuleysatay hadiyada iyo shucuurtaadu sidayta dareenkayga ma sha Allah aad u sareeya waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii su'aalaha ee Gada YouTube channel haatan waxaan rabnaa inaan weydiino shakhsiga nala taagan su'aal magacaaga marka hore iyo xaafadda deganta magacayga waa maxamed aadan xaashi waxaan deganahay xaafadda Golden Heights maxamedow waxaan ku weydiinaynaa su'aashaas ayada haddii aad ka jawaabtana waxaad leedahay jaa'izo su'aashan ku weydiinaynaa ayaa waxay tahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda rasmiga ah ee maamulka Jubbaland waa magaalada Bu'aale inta in laag badabtaa su'aashaas inay jawaabtaas 100% waa tahay dugsi iskuul iyo waxaas soo martay sooma waa tahay maxamed waxaan weydiinay su'aal ah sheeg magaalo madaxda rasmiga ah ee maamulka Jubbaland wuxuu ku jawaabay inay magaalo madaxda rasmiga ee maamulka Jubbaland ay tahay magaalada Bu'aale su'aashaas jawaabteeduna waa mid sax ah haddana waxaan guddoonsiin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hadiyad qaali ah oo kaga timid Soya Cosmetics and Electronic Shop maxamed aadan oo aan weydiinay su'aashii ahayd sheeg magaalo madaxda rasmiga ee maamulka Jubbaland oo ku jawaabay inay tahay magaalada Bu'aale yaa wuxuu mutaystay inay jawaabtaasi sax tahay isla markaana halkan ku guddoonsiina jaa'izo kaga timid Soya Cosmetics oo ah mid ka mid ah tabagaliyaasha barnaamijka su'aalaha ee Gada YouTube channel hambali aan ku leenahay okay ugu dambeyntii adigoo ka faa'iideysanaya fursadan bal shucuurtaada markaad ku guuleysatay hadiyada kadib maxaad ugu baaqleed dadweynaha wallahi waruntii waxaan islaa kulli su'aal adag bal weydiinaya kulli su'aal basiit bixigay ka noqotay waa dadku waxay ka qayb qaateen abaalmarinta gurteen leh guud ahaan intaas waxaan ku soo afmeerinaa daawadayaal barnaamijka su'aalaha ee Gada YouTube channel barnaamijka waxa halkan idinkaga soo tabinayay anigoo Cabdikaafi Aadan Maxamed Cabdikaafi Dalmar dhanka kaamirada waxa iga hagayay saaxiibkay Cumar Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Yare halka dhinaca farsamadana uu inoo fadhiyay saaxiibkay Cabdiraxmaan Qays barnaamijkan mid lamid ah inta ku kulmi doono waa bahda Gada channel oo idinkaga tagaysa sidaas iyo amaana Allah